waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay madaxweyne waa kugu haweynahay Soomaaliya ha noolaato aan guulaysanno insha Allah. farmaajo madaxweynaha hadda ee Soomaaliya ka hor xilka madaxweyne waxa uu ra'iisul wasaare ka soo noqday dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxaana uu xilkaasi hayay muddo ku siman 8 bilood 31 Oktoobar 2010 ayaa golihii baarlamaanka cod aqlabiyada ku ansixiyeen xilkiisa ra'iisul wasaarenimo waxaana uu 12 Noofembar ee sanadkaasi soo dhisay xukuumad ka kooban 18 wasiir golihiisii wasiirada ee xilligaasi uu ahaa kuwa tir ahaan kooban kolka loo eego xukuumadihii ay soo dhiseen ra'iisul wasaareyaashii soo maray dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo ugu magac daray Tayo ayaa tuurta u ritay dardargelinta howlihii qaran ee taagnaa xilligaasi oo ay ka mid ahayd dib u xoreynta caasimadda Muqdisho taasi oo ay inta badan gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab kontonkii maalmood ee ugu horeysay xilkiisa ra'iisul wasaarenimo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu ku guuleystay bixinta mushaaraadkii ciidamada iyo shaqaalaha dowladda dhankii dagaalada xukuumaddii cusbeed ee ra'iisul wasaare Farmaajo waxay sii xoojisay dagaaladii ay dowladdu caasimadda kaga saareysay kooxda Al-Shabaab waxaana bilowday kormeer isdaba joog ah oo ra'iisul wasaaruhu ku tagayay furmihii hore ee dagaalka 3 bishii Diseembar ee sanadkaasi 2010 ra'iisul wasaare Farmaajo waxa uu ciidamada kula sugnaa aagagii dagaalada xoogoodu ka socdeen taasi oo niyad dhis iyo garab istaag u noqotay ciidamadii dagaalka ku jiray waxay la tahay wadankan wax rajo u lahaan karin marka halkan waxaan u imid inaan arko goobtii xalay dagaalku ka dhacay oo aanu cadowga ugu guulaysanay nagu soo duushay sida xaqdarrada ah doonaysa wadanka inay dadka Soomaaliyeed waxay disho ilaah baa mahad leh ciidamadana qalabka sida waxay muujiyeen geesinimo weyn dadaaladan iyo kormeerka joogtada ah ee ra'iisul wasaaruhu la garab taagnaa ciidamadu waxay rajo iyo diilo ku abuureen shacabkii Soomaaliyeed ee ka soo daaray dhibka iyo daryeelida ay dowladdaantu leedahay waxaana xilligaasi bilowday taageero shacabka gudaha iyo dibadda ku nool ay u muujiyeen xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hayeeshee muddo kadib khilaaf soo jiitamay oo u dhaxeeyay madaxweynihii dowladii ku meel gaarka iyo gudoomiyihii baarlamaanka ee xilligaasi ayaa soo ifbaxay waxaana 9 bishii 6 2011 heshiis magaalada Kampala ay ku gaadheen qodobadii lagu heshiiyay ka mid noqday dib u dhigis doorasho iyo in ra'iisul wasaaruhu kursiga baneeyo taasi oo markii ay shacabku maqleen ku noqotay mid aan cuntamin waxaana bulshadii ku nooleed caasimadda iyo gobolada kale ee dalkuba ay bilaabeen banaanbaxyo lagaga soo horjeedo heshiiskaasi laguna dalbanayay in ra'iisul wasaare Farmaajo uu xafiiska sii joogo fiidnimadii maalintaasi dibadbaxyaal isugu soo ururay afaafka hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay ka niyad jabsan yihiin heshiiskii laga soo saaray kulamadii ka socday magaalada Kampala waxayna sheegeen inaanay meel u socon oo ay isaga garab taagan yihiin waxaan nahay haweenkii Muqdisho dhalinyaradii askartii cuqaashi maanta magaalada waxaan ka rabnaa laba maado in aad maaragtay badan maraakiib la keeno dal kale hadaad noo haysid aadna rartid hadaadan noo hayna dalkeenan rabnaa iyo xukuumadda adigu naga joogtid waxaan rabnaa natiijada cid kale oo dhagahayna u furihin ma jirto maanta shacabku ay dhageysanayaan waxaan ka rabnaa inaan guryaheenu ku noqonayno iyo inaan shaqadeena wadanayno waxaan rabnaa waxaan ku seexano xal maana seexan ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay dadweynihii halkaasi isugu soo baxay inay guryahooda ku hoydaan isla markaana uu rajaynayo in wax walba ay si fiican ku dhamaan doonaan gaajada nooga maxaan rabnaa hal isku carruurta haloo tago soo ma garan waa mahadsantihiin maanta balse dibadbaxayaashan ayaa ku goodinayay inay isu soo baxa halkaasi ka sii wadi doonaan kolka uu waagu bariyo
halka qaarkoodna ay taagnaayeen inay seexanayaan kaabadaha hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. barqanimadii maalinkii xigay waxaa halkii kasii socday dibadbixii lagu taageersanaa ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo ka dhacay inta badan magaalada muqdisho, waxaana uu dibadbixu sii xoogeystay kolkii ciidamada xooggu ay sheegeen inay la jiraan dareenka shacabka, wax kasta oo ay shacabku rabaanna ay la doonayaan. waxaan difaacayaa anigoo sargaal ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan difaacayaa hooyooyinkeenna iyo shicibkeenna iyo dalkeenna waxay doonayaan inaan halbo aan ula qaado. waxaan iga soo bixiyay farunta dhiirigelin ay shicibkeena igiliyeen. shacabka ayaanu saraakiil u nahay, saraakiisha dhammaanteedna waa inay go'aankaas way qaa'ilo qabaan. dhammaan militariga dhammaantiis sidaas ayay qabaan, iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, biliis iyo militari walowna wad sugid. waxaynu danaynaynaa shacabka Soomaaliya rabitaankooda. ra'iisul wasaare farmaajo isma casili karo hadduu doonaga anaga soo nooma jeedo garab taagan ha ka noqdo anaga garab taagan 24 hours anaga soo jeedayna. fikirkeenna farmaajo waa ninka kaliya ee isku dubariday dawladdan macquulka ah. dadkan kalena ma doonayaan dawlad macquula, waxay doonayaan inaan ku jirno sida 20 sano kana yeelmayno. waxaanu garab taaganahay farmaajo, ninka kaliya maanta iftiinka loo bixiyey oo ifkan la siiyey in lagu istaago ama lagu tunto waa qalad. waxaan leenahay ha noolaado, isagaana madax noo ah. saacaddan laga bilaabo nin kaloo raalli aan ka nahayna ma jirto. waxaan ku soo gaarsiiyey biyaha waxaan waday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan waday, kadibna banaanbaxa markaan arkay shacabkii Soomaaliyeed ayaan siiyey. waxaan u siiyey dalkooda iyo dalkooda say u rabaan oo u difaacan lahaayeen. dibadbaxyada iyo taageerada lagu garab taagnaa ra-iisul wasaare farmaajo ma ay noqon kuwa gudaha dalka ku kooban, balse waxay sidoo kale ka bilaabmeen wadamada dibadda, iyadoo shacabka Soomaaliyeed ee dalalkaasi ku nool ay qabteen isu soo baxyo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan ra-iisul wasaaraha iyo sida ay u jecel yihiin inuu xilka sii hayo. Soomaaliya waxa weeye 20 sano markii loogu horeysay oo aanu helnay midnimo Soomaaliyeed oo meel walba camirtay dibadda iyo gudaha oo hal mowqif la wada qaatay oo la diiday waxaan inaga inoo cuntamin wixii inoo cuntamana la aqbalay. taasna waa guul aanu gaarnay oo ka gudubnay way qabiilka iyo quranka la gaadhay iyo uu gaadhay farmaajo wadankii horumar u gaadhay 20 sano inaan la qaban uu qabtay ayaan ku taageeraynaa. wallahi farmaajo ha noolaado. si looga baaqsado khilaaf iyo muran kale oo dib u dhac ku keenay dadaaladii uu doonayay inuu dalku hore ugu dhaqaaqo. 19 bishii Juun 2011 ayuu iscasilay ra-iisul wasaare farmaajo isagoo sheegay inuu fulinayo heshiiskii 9 bishaasi ay magaalada Kampala ee dalka Uganda ku kala saxeexdeen madaxweynihii dawladdii ku meel gaadhka ahayd iyo gudoomiyihii baarlamaanku. saad la socotaanba baryahan waxaa socday hawlo ku taxalluqa khilaafiyo labadii bilood hadda ugu dambeysay ay ku soo gabagabowday shirkii hadda Kampala oo ay noqotay in la yiraahdo si hawshii iyo khilaafkii u dhamaado waa in xukuumaddu isbedesho. waxaan istusay in aan culture-kaas aan bedelo ama aan bedelno oo ah in loo baahan yahay in la tanaasulo, in loo baahan yahay danaha ummadda Soomaaliyeed in laga hormariyo maxaan ku raadaa maslaxadda shakhsiga ah, in danaha guud laga hormariyo wax walba. kadib iscasilaadiisii maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo daneynaya doonista shacabka Soomaaliyeed waxa uu doorashadii 2012 isu soo taagay xilka madaxweynenimo, balse maadaama uu shacabku aanu ahayn kuwa codkooda lagu kala baxayay nasiib uma yeelan inuu ku guuleysto kursigii madaxweyne ee xilligaasi. maxamed cabdulaahi farmaajo kama hadhin rumaynta riyadii iyo rajadii ay shacabka Soomaaliyeed ka qabeen inuu dib ugu soo laabto qabashada hoggaanka sare ee dalka, waxaana uu fursad u helay doorashadii 2017 dalka ka dhacday inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ku dhawaaqista guusha doorasho ee madaxweyne farmaajo waxay dhalisay dabaaldegyo waaweyn oo guud ahaanba dalka ka dhacay, halka Soomaalida ku nool dalalka dibadduna ay damaashaadyo ka dhigeen wadamada ay ku sugan yihiin. gudaha dalka waxaa isqabsaday dabaaldegyo aan kala sooc lahayn, waxaase mahadhooyin reebay oo si weyn loo xasuustaa kuwii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho, Jowhar iyo Gaalkacyo oo shacabkii labada maamul ee muddo xuduudaha lagu diriray ay dhex yaaleen ay si wadajir ugu xuseen
guusha u soo hoyatay musharaxii danta dalka iyo dadka waa madaxweyne farmaajo. muhiimadda dowladda Soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas'uul ah uu leedahay way magaalada inaan nabadeenno dadka waalaha magaalada gaalkacyo inay noqdaan sidii ay ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan iyo magaalada ugu weyn tahay magaalada gobolada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon karto waxaan ka rabnaa inaad dib u heshiisiin noo samaysid madaxweyne waa kugu haweynahay madaxweyne waa kugu haweynahay tani waa muqdisho dhawaqa xabadda iyo yeedhmada rasaasta baxday ma ahayn howlgal amaba mid ka dhalatay khalkhal amni oo ay dareemeen ciidamada amnigu balse waxa ay ka mid ahayd dabaaldeg ay shacab iyo ciidan wada jira ku soo dhoweynayeen doorashada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. farmaajo igeeya waa mid kale oo ka mid ah xusuusaha maguuraanka ah ee taageerayaashu ku dabaaldegayeen waxaana ereyadani laga guntay cabdulaahi maxamuud cusmaan daayeer oo uu horkacayay dabaaldegii reer jawhar ku soo dhoweeyeen doorashada madaxweynaha. dhanka dalalka dibadda iyo dariska oo aan qudhoodu yaraysan dabaaldegyada lagu soo dhoweynayo madaxweynaha cusub ayaa sidani looga xusay. halkani waa Nairobi caasimadda waddanka aynu dariska nahay ee Kenya waxaana shacabkan dariiqyada tubani ay u dabaaldegayaan guusha doorasho ee uu gaadhay madaxweyne farmaajo. dhankooda qurba joogta Soomaalida ee ku kala sugan daafaha caalamku waxay qabsadeen munaasabada ay ugu dabaaldegayaan doorashada madaxweynenimo maxamed cabdulaahi farmaajo. haddaba adigu daawade haddii doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo mar kale ku guuleysto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo magaaladee ayaad ku dabaaldegi doontaa?